بسم الله الرحمن الرحيم شركان wada tashiga maanta waxaan ugu tiragalnay inaan ugu yeerno hay'ooyinka maaliyadda ay ka kooban yihiin wasaaradda maaliyadda hanti dhowrka xisaabiyaha guud iyo hay'ooyinka cadaaladda heer ilaalinta wasaaradaha cadaaladda dowlad goboleedyada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ugu muhiimsaneed rugta ganacsiga iyo bulshada rayidka aan ugu tiragalnay in laga hadlo barnaamijka la xiriira ka hortagga musuqmaasuqa iyo sidii loo heli lahaa dowlad wanaag. Hay'ooyinkan waxaan isugu keenay qaarna waxay ka shaqeeyaan nidaamka maaliyadeed oo hadda dib u habeen ku socota, qiibna waxay ka socdaan baxda cadaaladda oo ku jiraan wasaaradaha cadaaladda iyo private sector guud ahaan dalka shirkadaha gaarka loo leeyahay si loo barto si loo hirgeliyo istiraatiijiyada qaran oo la dagaalanka musuqmaasuqa. Sidaad la socotaan wasaaradda cadaaladda waxay aad iyo aad ugu mashquulsaneed in la helo dowlad wanaag, waxayna ka soo bilowday in markii hore ay diyaariso sharciga lagu dhisay guddiga madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa, kaas oo muddo dheer qaatay, kadibna golaha wasiirada iyo baarlamaanka ay ansixiyeen, madaxweynahana saxiixay oo sharci noqday. Waxay kale ku dadaashay inay diyaariso siyaasad qaran oo la dagaalanka musuqmaasuqa, siyaasadaas oo ayadan golaha wasiirada soo diyaariyeen, siyaasadaas oo maanta halkan lagaga doodi doono si loo hirgelin lahaa. Haddana waxaa la socotaan in guddigii madax bannaan la dagaalanka musuqmaasuq xubnihiisa hadda la ansixiyey. Marka waxaan aad iyo aad ugu mashquulsanahay hadda si loo hirgelin lahaa, loo saxiixi lahaa heshiisyada caalamiga oo laba ka mid ah golaha wasiirada hadda soo ansixiyeen ay yihiin heshiiskii qaramada midoobay oo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo heshiiskii African Union mise dowladaha midoobay Afrikaanka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo heshiiska kale oo aan hadda diyaar u nahay isagana inaan golaha wasiirada marino oo isagana jaamacadda carabta heshiis isagana khuseeyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Marka waxaad u jeedaa in aan aad iyo aad ugu mashquulnay shuruucdii iyo heshiisyadii la xiriiray arrimaha musuqmaasuqa iyo si loo heli lahay dowlad wanaag, taas oo loola dan leeyahay Soomaaliya inay magaceeda ay laga saaro meeshii hadda ay ugu jirto, kaalinta ugu jirto laga saaro, isla markaasna Soomaaliya ay soo gaarto meeshii ugu wanaagsaneed dowladaha caalamka ay kaga jiraan markii la yiraahdo musuqmaasuqa. Marka arrimahaas dhan baan ku mashquulsanahay. Waxaa noo soo baxday marka in dhaqan ahaan la bedelo waxyaabaha hay'ooyinkeena ay samaynayaan, ay fahmaan run ahaantii maxaa dowlad wanaaga ka hor imaanaya oo dadka u horseedi karaa musuqmaasuq, maxaana maaragtay qarankeena lagu dhisi karaa musuqmaasuq muxuu yahay, noocyaha su-aalahaas la isweydiinaya. Istiraatiijiyadana way ku qoran tahay, waxaa kale ku qoran shuruuci kale dalka. Marka hay'ooyinkan aan hadda aan ku sheegay maaliyadda iyo garsoorka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo booliska iyo wasaaradda amniga, qeybaha kala duwan oo ayadan law enforcement agency ay qaabilsan tahay, iyo garsoorka, qeybahan aad u jeeda markay isu imaadaan waxaa ka furmaysa dood. Dadkeena garsoor ma helaan, maxay u heli waayeen garsoorkii, maxaa ka hor istaagan, caqabooyin ma jirta, dadkeena nidaamka maaliyadda ma ku kalsoon yihiin, adeegii ay u baahnaayeen ma helahayaan, qofka muwaadinka xuquuq soo ma laha, xuquuqdiisa markii uu gudanayo oo xafiis dowladeed tagayo ma waxyaabo lagu xirayaa jira mise ma ahe wuxuu u baahnaa asigoo maaragtay jid kale oo qaldan marin buu hela. su-aalahaasaa marka meesha ka furma.
su-aalahaas jawaabtooda marka waxaa laga helayaa shuruucda dalka oo istiraatiijiyada hadda la ansixiyey ay ka mid tahay ay ka mid tahay ay ka mid yihiin xeerka iqaabta Soomaaliyeed iyo sharciga lagu dhisay guddiga madax bannaan la dagaalanka iyo dastuurka naftiisa qodobka 111 oo asagana lagu dhisayo guddiga madax bannaan iyo guddigaas waajibaadkiisa wuxuu yahay waxaana la joogo oo Puntland ka imaaday Puntland good governance dowlad wanaag iyo astaynta dowlad wanaaga hay-adda la yiraahdo oo xafiiska madaxtooyada Puntland tagayso ayagana waxay ka shaqeeyeen almost waqti badan ba ay jireen oo ka shaqeynayeen ayagana maanta waxay keeni doonaan meesha waxyaabihii ay soo barteen oo dadkooda iyo dhulkooda ay ka hirgeliyeen ba halka ay keenayaan marka dowlad ahaan waxaan isu keenahaynaa marka macluumaadkaas dhan waxaan u sheegay dadka ka soo qayb galay inay yihiin shaqaale dowladeed loo baahan yahay meelihii asalka ahaa dowladnimadana ay yihiin oo ay joogaan si fiican ma aragtay ay u hirgeliyaan istiraatiijiyada iyo shuruucda dalka iyo